فنان وكنت هسه بدلنا سبعين كرا ومضى إن بدل مليانين كرا السجن ده وكل المسؤوليات وين بصارن أنا واحد صارنا صور وينه أنا جاي بشدي إلى هذا الشيء الرجل مان هو شكله شغال إنه صور وين أنا صارن لكن السجن مسؤوليات صارنا حويه سجال ساعات حريرة بشدة أو إيمان دورته ما وينتي هو مسؤولية السجن صار أنا لكن إن أنا أقول إنه سجن بشدي سكر إنه مال سكر إنه وأنا قاعد طبعا قاضي وأنا مسؤولية دي عن قاضي إنه وأنا قاعد صار وين هرجل دون إن شاء الله تعالى كور مركا dad badan waxay isweydiinayaan maadaama uu kaliis aflaanta jiri jireen oo gabdhaha la soo jireen safarka ma gabdhaha ku weliimis waa kaliis safarka masdiir hada waa isaga kaliya oo nooyin hadee waxaan u malaynayaa goosan baa maqan oo idil iyo asr la'aantood inaysan igu soo gaareen baan u malaynayaa dabcan waxay la tahay waa wareysan doonaayo midda safarka dambe iyo diyaaradaha dambe ku qoran yihiin aad ma santi waata ugu dambeyn aad u aad mahadsan ninkan computer magaciisa la yiraahdaa magacan basdiirna aad u bixis dad badan ku daawanaya su'aashaasina ka dhex guuxis magacaas maxaa ku xulatay sideena kugu maaday maadaama dad badan oo majaajilistayaal oo afrikaan iyo dunida joogan in ninkan ka xulatay sidee kugu dhalatay magacaas adu basadan hada aragtidnaadaad oo ka jinayay horaa ka soo baxaysaa waxa ay saabsan sidii baadaya oo saxir baadaya marka wajoo jogmaysid marada magaca waxa arkaysid wajoo jogmaysid horaad ka soo qabanaysaa magacaas taasaa fududaysay oo hirgelisay inaan garboon soo qabto magacaas ajiibka oo asbaabta oo caag ku yahay وحربا سبحان هل مر حربا كان ورئيس أهم وبهنا لكن حربا الشيء جرا إذا أهم عادنا أو هذا الشيء وديش أبو سودين وصديرا سوقين واسداس واسان وإنا نتفكر هذا ربع معناه بس عادي أو هذا الشيء أما أنا ورئيس الورئيس أنا معه كان عادي يعني ما مركور كربي dib ma lahan hadda hormariyo xataa hadda waddo karna ay markal wicin ninka waxayna jarjaranaya hadda ku cishada hay عادي لو بلا بس عد كل هذا لسه ما له حربا أنا كون حسدنا بس دير سويسين كوبلانتين إنه مقدش ما أنت سودوس أنت سكر ربع شوف جرايد أهان سودو بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت آديا دلنا السلام يا أصحاب وقت بدن وقت الفضاء أفضل بمقام تقول لي السلام يا ولبا أنا قلت حتى بس دير كتبتون مقام بس أفضل بالسلام يا وحاول وباهيزة maamulka ila shaqeynaya aniga oo runtii intaas maarta hawshan nala fulinayay maamulka hotelka sidoo kale companyga visit oo isaguna qayb ka ahaa magaranaysaa in oo wax nala fududeeyo oo wax nala soo dhaweeyo oo hotelka nala qabanqaabiyo oo gaadiidka nala qabanqaabiyo oo runtii isku xiridka noo sameeyay warbaahinta iyadana sidoo kale aad iyo aad u salaamaya halkan waxaanu maalmaha u joognay muuqda su'aal ka dhan mar haddii basadiriyaad fadhiyo waxa weeye waa dhan tahay macnaha barnaamijkan ka hadlayna waa wax iska cad marka yaantan bade waxaan joogay magaalada muqdisho waxaanan ku sugayay inaan saaxiibkii basadir kusoo dhaweeyey magaalada muqdisho maantana way dhacday oo ilaahay waa noo suura geliyey aniga iyo asxaabtayda inaan kusoo dhaweyno magaalada muqdisho mar kale waxaan u mahad celinayaa أصحاب فرق ترسا وأنا كنا مركب رسول إيش لويسي إمين كنا وحول بأيجو مارتا إلهي كسبه نرف بدي سيدا صاحب في حجك حتى أفري حكم وري جماعة حسكات وأنت أصلا وإحنا للدوري أنا يرى بدنا أدو ما تريم كرو كمبري كنا أوران الشيء في سيد أو مارتا غير شيء جديد كيسو وينتر oo maarta dadkiyaasha si fiican runtii loola qaabilay isaguna sidoo kale laamaha ammaanka taliyaashii soo dhaweeyay waa aad u mahadsan yihiin wax walba nala fudeeyay marka waraysigan inta shirkan intaas u daaran yahay ma وما شانتي بس كده يا كيف بس قريب الصومالية بس شيء صومالي عادي مدي مركز سجنها عادي هوا شكرا أنا ولا باقي سوية اوكي first
You can speak little English or Kiswahili. Okay, English and Swahili changanya. Okay. Okay. First, how Somali look like before you come in, where you believe in here. Yeah. Yeah. Cha kwanza nafurahi sana Somali. Nisingefahamu mimi siwezi nikajiita Kinkusi bila yeye kunifanya nisijulikane Somali. Amefanya big kazi, amefanya big job mpaka leo Somali nimepokelewa airport kama rais, kama president. Wanaotusupport wamekuja pale airport, wametusupport kweli, wamenikaribisha Somali. Nimeona Somali kubwa imejengwa na nipo Somali kutokana na yeye, ndio amenifanya nifahamike Somali. Na siwezi nikasema kwamba Somali nipo na mtu mwingine, bali kwa sasa hivi rafiki yangu, kaka yangu, dada yangu, ndugu yangu ni yeye. Ndio anajua kula kwangu, kuishi kwangu mpaka kulala. Na maana mtu atakaye ni face mimi inabidi amface kwanza yeye. Kile face. Kama una business yako lazima umface kwanza yeye, ndio utamface. Nashukuru sana kwa mapokezi ya Somali. Wametupokea vizuri sana. Kiukweli mpaka mida hii na siamini kama kweli Somali nilikuwa nafahamika hivi. Unanisoma? Siamini kweli. Acha ma Facebook, acha YouTube, lakini love ya pale airport is big love. Na hata yeye nashukuru sana my friend. Huyu amefanya mimi kiukweli amefanya mimi Somali nionekane mtu mkubwa na uzito. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie safari ndefu. Sema amini. Sema amini wewe. Kweli amini. Yeah, okay. Yeah, tunashukuru sana. Yeah. Thank you. Farhan, you with Farhan today. So Farhan, how it is for him? I can tell to English to Swahili. Yeah, both unit. Swahili to English. Oh yeah. Hebu swali lako wasemaje? Yeah. Today you with Farhan. He's your friend. Before, how it is before? Yeah. Before Farhan tulikuwa sio marafiki. Okay. Tulikuwa sio marafiki. Nilikuwa simjui. Kiukweli brother amefanya kazi kubwa, big job. Yeah. Kwanza amefanya jina la Bakadir kujulikana Somali bila mimi kujua. Yeah. Nilikuwa sijui chochote kuhusu yeye. Lakini by the way baadaye nikaja nikamfahamu kama ana translate video ya Kiswahili kwenda Kisomali. Bro is big job. Hata Tanzania wanamjua. Hakuna channel Afrika ambayo ina translate video kutoka kwa Kiswahili kwenda kilugha chochote ambayo inafahamika kama channel ya Afrika. Tuseme tu kweli. Unanisoma? Kwa sasa hivi mpaka nikaja nikamfahamu mpaka tumekuwa hivi bro, tumepitia vingi. Hatuwezi kuongea ambavyo tumepitia, tunaongea mazuri sasa hivi. Tunaongea matunda tunayoyaona. Matunda tunayoyaona ndo kama mnavyoona hapa Bafadini kwa Somali, mnavyomwona my brother yuko hapa. It's big job. Thank you. No, thank you very much. Very much. Thank you.